بسم الله قيب تضبط برنامجkeena miisaan waxaan ku soo qaadanaynaa mowduuc la xiriira labada mowduuc ee la soo dhaafay kuwaasoo ku saabsanaa laba wajiilanimada ku wajahan dadka Falastiiniyiinta haddana waxaan eegaynaa saxaafadda iyo laba wajiilanimadeeda gaar ahaan saxaafadda reer galbeedka iyo siyaabaha ay uga hadlaan arrinta Falastiin waxyaabaha aan ku bilaabi karno oo laba wajiilanimada tilmaamaya waxaa ka mid ah marka ay ka hadlayaan weerarkii ay qaaday Xamaas waxa ay ku tilmaamaan weerar macnaha aan daandaansi ka horeyn ama wax ku kalifi kara Xamaas ay si jirin inay weerar qaado macnaha xisaabta kuma jirtaba wixii Israa'iil ay sameeynayso intaasoo sano oo maalin kasta wax caadi iska ah dhici jiray in dad la dilo aan waxba galabsan in guryaha laga saaro in la iska xirxiro dadka in la iska toogto waxyaabahaas oo dhan macnaha ayaga xisaabta ugu ma jirto markaas bay waxay dhahayaan weerarkaas wuxuu ahaa weerar aan wax daandaansi ka horeyn ama wax sababi kara aysan jirin macnaha mar kale ayaan ka hadli doonaa insha Allah saxaafaddu waxyaabaha ay ka qoraan Falastiin iyo laba wajiilanimadooda laakiin hadda qaybtan waxyaabaha aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah mudaaharaadyada lagu taageerayo Falastiin idaacaduhu kulli waxay leeyihiin waxaa lagu taageerayaa Xamaas xataa BBC-du raaligelin ayay ka bixisay kadib markii ay dad Falastiin taageeraya ku tilmaamtay inay Xamaas taageerayaan waxaa jira waxyaabo badan oo idaacaduhu ay aqbali karaan marka ay wareysanayaan qofka reer bani Israa'iilka ah laakiin aysan aqbali karin marka ay wareysanayaan qof taageersan Falastiiniyiinta waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo laba wajiilanimada ah qof taageersan Falastiiniyiinta haddii uu idaacadda soo fariisto su-aasha ugu horreysa oo la weydiinayo waxay tahay raaligelin ma ka bixinaysaa weerarka ay Xamaas geysay inta aan wareysi kale la gaarinba haddii uu su-aashaas uusa ka jawaabin siday rabaan uga jawaabinna wareysi kale maba jiraba waa uun dood wixii soo haray laakiin qof dhanka kale ah su-aalahaas iyo wax u dhow la weydiimaya ma cambaareynaysaa dhibaatada loo geystay Gaza ma la dhahayo iyada waa laba wajiilanimo iska waadaxa taas madaxda Israa'iil maalin kasta idaacadaha waxay ka sheegaan waxyaabo macnaha aan la aqbali lahayn haddii ay qof Falastiin ay sheegi lahaa tusaale ahaan inay dhibashada ku fiican yihiin oo kale inay macnaha daanyeero yihiin inay xoolo yihiin ama wuxuush iyo waxyaabahaas in la cirib tiro ay qasab tahay in Xamaas iyo Falastiiniyiintu isku mid yihiin laakiin taas haddii laga yiraahdo dhanka kale qaylada ka dhacda waa la yaabayaa mana ogolaa doonaan waxayna dhihi doonaan waa yahuud nacayb idaacadaha tusaale ahaan marka dhanka Falastiin wax laga dilo waxay dhahaan 500 oo qof ayaa dhimatay erayadaas ayay isticmaalayaan 500 oo qof ayaa dhimatay 300 oo qof ayaa dhimatay laakiin dhanka kale marka laga hadlayo 1,000 ayaa la dilay ama 500 ayaa la dilay macnaha hadalkayga wuxuu dhacayaa marka Falastiiniyiinta laga hadlayo waa dhinteen laakiin marka yahuudda laga hadlayo waa la dilay laakiin qofka caadiga ma dareemi karo erayga bixintaas qaabka loo dhigayo ma dareemi karo dadka badanaana ma dareemaan sidoo kale idaacaduhu tusaalehaan dadka wax toogtay qoryaha ee weynaysada ku xiran tahay wata argagixiso uma yaqaanaan tan ugu daran oo aan doonayo mowduucan inaan uga hadlo laba wajiilanimada ay isticmaalaan idaacadaha reer galbeedka waxaa ka mid ah tusaalehaan waxa ay leeyihiin 500 ayaa dhimatay ayay dhaheen Falastiiniyiintu tusaalehaan saas leeyihiin ayay dhaheen Falastiiniyiintu isbitaal ay Xamaas maamusho ayaa la duqeeyay iskuul ay Xamaas maamusho ayaa la duqeeyay macnaha waxaa lagu darayaa wax ama shaki geli kara inuu hadalkaasu been yahay tusaalahaan Falastiiniyiinta ayaa yiri macnaha beenay sheegayaan ku jirta meesha sidoo kale marka la leeyahay Xamaas ay maamusho oo kale macnaha qofka aqrinaya wuxuu iska dhaadhicinaya waa gar in la duqeeyo maxaa yeelay Xamaas ku dhex jirta camal laakiin dhanka kale marka laga hadlayo waa la dilay masaakiinay ahaayeen xaq uma lahayn habray ahaayeen waayeelay ahaayeen duqooshay ahaayeen saqiiray ahaayeen iyo xabasaasay dhahayeen laakiin dhankan kale isbitaal Xamaas maamusho ayaa la duqeeyay intaasaana ku dhimatay intaasaa lagu dilay xataa ma la dhahayo idaacadahaas qofka soo fariista ee isku daya in uu wax ka sheego Israa'iil waxaa la leeyahay yahuud nacayb ayaa ku jira hadalkaada laakiin idaacadahaas qofka ka hadla ee si toos ugu goodiyo Falastiiniyiinta waa caadi waa soconaya waa laga soconaya idaacadaha reer galbeedku marnaba aad ayay u yartahay inay ka hadlaan dadka loo yaqaan mustawdiniin oo ah dadka carrada qarribay mar kastana ka dhex shaqeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta dadka ka dhex shaqeeya isku dira dadka laaya guryaha dadka kala baxa hubaysan dadkaas oo magaalooyin dhan iska qabsada idaacadaha reer galbeedku kama hadlaan waa iska indha tiraan maalin kasta magaalooyin cusub ayay ka sameeyaan dhulka Falastiiniyiinta laakiin way iska indha tiraan idaacadaha reer galbeedku kama hadlaan idaacadaha reer galbeedku waxay ku soo celcelinayaan erayo cajiib ah oo ay uga dhigayaan Israa'iil in ay tahay daahir oo macnaha wax qaladaba aysan ka imaan karin waxyaabaha ay ugu weeraraan waxaa ka mid ah halka dimuqraadi ee ka jirta bariga dhexe halka dowlad ee dimuqraadiga ee ka jirta bariga dhexe ciidanka anagu u naqaana quwaatul ixtilaal ama ciidamada xooga ku haysa dhulka ayaa waxay u yaqaaneen most moral army in the world macnaha ciidamada ugu adabta badan ama ugu anshaxa badan
dunida oo dhan ayay u yaqaanin idaacadaha ayaa u bixiyay sidaas waxyaabaha kaloo cajiibka oo aan kusoo gabagabeynayo waxaa ka mid ah marka ay idaacadahaas reer galbeedku ka hadlayaan dhanka israa'iiliyiinta waxa ay soo qaadanayaan ciwaano la yaab ah tusaale ahaan qof hebel ma seexa karo kadib argagax uu la kulmay tusaale ahaan qof hebel hooyadiis ayaa lagu dilay qof hebel aabihiis ayaa lagu dilay sida aan ognahayna ghaza waxaa lagu laayaa macnaha famili qoysas dhan ayaa dhulka la dhigaa qoysas dhan ayaan waxba ka harin mararka qaar 10 canuga isla dhalata ayaa hal mar la dilaa laakiin arrimahaas ma soo qaataan ayagu waxay soo qaataan qof dhahaya tusaale ahaan waa seexa waaye kadib markii aan maqlay saaruuq agteeda ku soo dhacay oo kale tusaalehaan kadib markii oo agteeda ku soo dhacay madfac waan hurdi waayey ama waa shoogay iyo waxyaabahaasi buubuuniyaan laakiin dhanka kale dhibaatada ay la kulmaan dadka la laayo dadka ilmahooda la laayo waalidiintooda la laayo famil dhan oo waxba ka soo harin famil dhan oo hal canug ka soo haray waxyaabahaas agtooda macnaha xisaabta uguma jirto mana qoraanba annaga unbaa aragna waxyaabaha noocaas laakiin ayagu ma arkaan mana qoraan waxyaaba badan ayaa looga hadli karaa mawduucan laakiin intaas ayaa hadda igu soo dhacday intaas ayaan ku ekeenaya